galab wanaagsan magacaygu waa Maheesh waxaan dhashay sanadkii 1979 waa laga yaabaa inaan sii joogo halkan 2030 ama 2040 haddii aanu caalamku markaa dhammaan uusan suulin hadda waxaan rabaa inaan ogaado halkeen joogay 1979 ka hor markaan dhintase halkeen ahaan doonaan joogi doonaa haddii la ii qoray inaan caalamkan joogi doono muddadaasi xadidan iyaan matala aniga walaalka su'aal buuna weydiiyey wuxuu sheegay inuu dhashay 1979 haddana uu joogo dawladda Imaaraadka wuxuuna rabaa inuu ogaado halkuu ahaan doono dhimashadiisa kadib wuxuu leeyahay ku dhawaad 2030 kadib haddii caalamku uu sii jiro halkee buu ahaan doona dhimashadiisa kadib sidoo kale sayuu matalaa walaal adigu naftaada baad matashaa haddii wax isbedela aysan kugu dhicin oo aad waxba qarin adigu naftaada baad matashaa oo dabiici tahay taas waa nambarka koobaad arinta ku saabsan markaa dhimata kadib adiga ayay kugu xiran tahay waxa aad raacsan tahay haddaad raacsan tahay kitaabka kutubta ugu dambeeyay quraanka kariimka dhimashadaada kadib jannada ayaad gali doontaa haddii aad khilaafsan tahay sharciga Allah oo aad khilaafsan tahay kitaabka ugu dambeeyay kutubta waa quraanka jaxiimo ayaad gali doontaa haddaba haddaad aqbasho maanta amarada Ilaahay wixii aad sameeynaysa laga soo bilaabo 1979 ilaa maanta ay tahay 14 Abriil 2012 waa lagu cafin doonaa dhamaantood 2012 all will be forgiven kulli waa lagu dhaafayaa sidaa darteed wixii aad hore u samaysay dhan laguma xisaabinayo sababtoo rasuulkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ilbiriqsiga iyo xilligu qofku islaamka soo galo dhammaan dunuubtiisa hore dhan waa laga tirayaa sidaa darteed iyadoo la cuskanay inta aad raacsan tahay tacaaliimta Allah subhanahu wa ta'ala waxaan awoodaa inaan kuu sheeg halka aad ahaan doonto laakiin ma garanayso adigu markaa dhimanayso haddii aad tiraado adiga arrintan aniga ma garanayo maxaan sameyn doonaa laga yaabo inaan noolaan doono ilaa 2030 sidaa darteed aniga islaamku waxaan geli doonaa sanadka 2029 walaal aniguna ma aqaano adiguna ma garanaysid inta aan noolaan doono sidoo kale waxaa tiri haddii caalamku uu sii jiro aniga ma garan karo marka caalamku dhamaanayo Allah wuxuu ku leeyahay quraanka suuratul luqmaan suurada 31 aayada 34 ma jiro axadaan ilaahay ahayn oo garanaya goormee saacadu dhacaysa goormee adduunku dhamaanaya anagu ma ogin ma sanadan sii joogi doonaa sidoo kale ma ogin waqtiga ilaa goormee sii noolaan doonaa sidaa darteed waxaa wanaagsan inaad aqbasho xaqiiqada ilbiriqsiga aad ogaato adiga laguma xisaabin doono wixii hore kadibna waxaa isku dayaysaa inaad ku dadaasho inaad raacdo tacaaliimta intii awoodaada ah sidaa darteed arrinta halkee baad ahaan doontaa dhimashadaada kadib adigay kugu xiran tahay anigu waxaan awoodaa oo kaliya inaan ku tusiyo wadada Allah wuxuu ku leeyahay quraanka suuratul ghaashiya suurada 88 aayada 21 ilaa aayada 22 فذكر إنما أنت مذكر رسولك وحنو شيغيا إن لغا دونيا او كليا فرينتنا لكن موضوع هانونينتا وحو كجرا غعنتا الله سبحانه وتعالى سادرتد waxaan rabaa inaan ku weydiiyo walaal dhimashadaada kadib ma jannada rabtaa mise jaxiimo dhimashadaada kadib ma jannada rabtaa mise jaxiimo dhab ahaan ma garanaysid sababtoo ah marka aniga la eego janno iyo jaxiimo halkan ayaa laga heli karayaa xulashadu waa xageena haatani waa naciimo iyo jaxiimo waqtiyeysan tahay ama way suulaysaa sidaan hore u sheegay quraanku wuxuu ku leeyahay suuratul mulki suurada 67 aayada 2 alladhi khalaqa al-mawta wal hayata Allah waa kan abuuray dhimashada iyo nolosha si uu idin imtixaano kiineba sameeysanaya amal wanaagsan adduunyadan waxay u taagan tahay imtixaan tani waa imtixaan da'da qofka xilligaana waa dhaxdhaxaad waa 60 ama 70 sano qaarkood da'doodu iyagoo tahay 20 ay dhintaan qaar kale 50 bay ku dhintaan qaar baa 100 ku dhintaan laakiin da'da dhaxdhaxaadka waa 60 marka waa marxalad waqtiyeysan nolosha xigtase waa weligeed sidaa darteed waxaa leedahay janno iyo jaxiimo halkan bay jiraan isku dayaysaa inaad adduunyada naciimo janno ka dhigto adigoo maal iyo keedad badan jamcinaya qamarada iska cabaya nolosha xigta jaxiimo ayay noqon doontaa sidaa darteed Allah wuxuu ku leeyahay suuratul huud marka la eego kuwaasi doonaya naciimada adduunyo Allah wuxuu siin doonaa naciimada adduunyo wuxuuna ka xarimi doonaa naciimada aakhiro kuwaasi doonaya naciimada aakhiro Allah tan adduunyo iyo tan aakhiro wuu siin doonaa sidaa darteed haddaad tahay ganacsade oo midkood kugu yiraahdo dhibaatooyin yaryar ayaa ku soo maraya iyo culaysyo yaryar muddo 70 sano ah kadibna nolosha xigta waxaad ku jiri doontaa naciimo daa'ima iyo farxad aan dhammaad lahayn noloshan waxba maaha marka la barbar dhigo nolosha xigta
ka ganacsada ahaan waxaan hubaa inaadan diidi doonin inaad wajahdo dhibaatooyinka iyo mashaakisha yaryar ee sanadaha yar. Tusaale haddii aad imtixaan leedahay, imtixaanka ka hor waa inaad dadaasho oo aad u shaqaysaa oo aadan hurdinooda seexan muddo gaaban. Kadibna imtixaanka ayaad meel sare tagaysaa. Haddaba imtixaanka ka hor waa daalaysaa oo dadaalaysaa, laakiin mustaqbalka ayaa wanaagsanaan doona. Waa isla mid walaal, noloshan waa imtixaan marka loo eego nolosha aakhiro. haddaad tahay hinduu maheeshow oo aad rumaysan tahay buugaagta hinduuga sida ku timid fiidaa buugga 10aad jabtarka 16aad faqrada 4 ilaa 5 waxay ka sheekaynaysaa buunar janam. buunar xigta, jan nolol, waxay la micno tahay nolosha xigta ee qur-aanku ka hadlay. sida darteed noloshan way timid, nolol kalaa xigta. dhalasho, dhimasho, kadib nolol mar kale. nolosha wareegeeda iyo soo bixinta laguma sheegin fiidaaga. isagu wuxuu ka sheekeeyey buunar janam oo macnaheedu tahay nolosha xigta ama aakhiro. sidoo kalena qur-aanka waa lagu sheegay. sidaa darteed ninka wanaagsan wuxuu u fikiri doonaa sida ganacsade oo nolosha aakhiro ayuu og yahay inay wax badan ka wanaagsan tahay tan hadda la joogo. aad ayay daciif u tahay noloshan adduunyo marka la barbar dhigo nolosha aakhiro. sidaa darteed haddaad tahay ruux caqli badan ma diidi doontid inaad mashaakil yar dunidan ku marto si aad u raaxaysato nolosha aakhiro oo aad ugu noolaato janno iyo naciimo. sidaa darteed walaalteebaad jeceshahay, janno iyo jaxiimo nolosha aakhiro? walaal, haa mudane, ma waxaad doonaysaa janno ama jaxiimo nolosha aakhiro? maya mudane, ma aaminsani inay nolol labaad jirto, sababtoo ah haddii ay nolol labaad jirto. buugaagta hinduuga ma rumaysan tahay? haa, waa rumaysan tahay. fiidaaga ma rumaysan tahay? meelaha qaar ee buugaagta ku qoran ayaa rumaysanahay oo keliya. fiidaaga ma rumaysan tahay? haa, laakiin wax badan kama aqaano fiidaaga. laakiin waa rumaysan tahay inuu buug muqadasa yahay. maxaad idhahday? in xagga alle laga soo dejiyaad rumaysan tahay? maya, anigu inaan ilaah ahay ayaanba rumaysanahay. adigu ilaah baa tahay. dhammaantaan ilaah ayaan nahay. waa sida ay hinduugu leedahay. waa maxay qeexidda ilaah? ma garanayo. aniga waxaad leedahay ilaah baan ahay, adigu ilaah baa tahay. markaan ku weydiiyey qeexidda ilaahna waxaad leedahay ma aqaano. sidaa darteed waa in lagu bixiyaa ma aqaano, anigana ma aqaano. aniga nafteyda waan aqaanaa. hagaag, waxaad leedahay ilaah baan ahay, adiguna ilaah baa tahay. waxaan ahay qayb ilaahay ka mid a. aniga waxaan ku weydiiyey qeexidda ilaah, kadibna waxaad ii sheegtay inaadan garanaynin. adiga ingilish miyaad ku hadlaysaa mise wax kale? ingilish baan ku hadlayaa. haddaba waa maxay qeexidda ilaah? ma qeexi karayo inaan dareemo. haddaba haddaadan garanaynin sidee baad u leedahay anigu ilaah baan ahay, adiguna ilaah baa tahay? laakiin waan dareemi karaa. qayb kasta oo gudaheenna ayuu ku jiraa. waa maxay qeexidda ilaah? waxaad leedahay meel kasta ayuu joogaa, adigu ma ilaah baa tahay mise wax kale? wax kasta ka hor ii qeex ilaah. haddii qeexiddaada ilaah aysan sax ahayn, waan kuu sheegi doonaa midda saxda ah. waa maxay qeexidda ilaah? qeexid dhabo ilaahay ku saabsan ma hayo. taa micnaheedu waxa weeyaan inaadan rumaysnayn. anigu kama sheekaynayo ilaah adigu aad ka sheekaynayso. sidaa darteed waxaa lagaa rabay inaad i weydiiso qeexidda ilaah, aniguna waan kuu sheegi lahaa. haa mudane, ma ii sharixi kartaa? haddii aadan garanaynin maxaad samaynaysaa? ma waxaa lagaa rabaa inaad weydiiso mise wax kale? haa, i weydii, anaa kaaga jawaabaya. waan kuu sheegi doonaa qeexitaanka ilaah marka la fiirsho fiidaaga iyo obanishaadka, kadibna qur-aanka aynu imaanaynaa. haddaad akhriso jandoog iyo obanishad jabtarka 6aad qaybta 2 faqrada 1, rabbigu waa waaxid, mid labayana ma lahan. haddaad akhriso shiftaasha fataara obanishad jabtarka 6aad faqrada 9aad waa sanskrit, macnaheedu waxay tahay rabbiga ma jiro wax ka sarreeya, laba waalidna ma laha. allah ma jiro wax hogaamiya, ma jiro ilaah kale, ma jiro aabba iyo hooyo uu leeyahay. sidoo kale waxaa lagu sheegay shifata shafatar obanishad jabtarka 4 faqrada 19aad rabbigu ma lahan barathima. barathima waa erey sanskrit, macnaheedu waxa weeyaan taallo ama sanam ama sawir ama wax kale oo calaamada. rabbigaasi ma lahan sawir, farshaxan ama meel lagu sawiray ama taallo loo taagay ama sanam ama wax kale. sidoo kale waxaa lagu soo celiyey yaajurfeed jabtarka 32 faqrada 3aad rabbigaasi ma lahan sawir, farshaxan ama meel lagu sawiray ama taallo ama sanam ama wax kale. sidoo kale waxay leedahay buugaagta hinduuga
Dyotya naste, nina naste kinchan. ilaahu waa keli mid labeeyana ma lahan weligii sidaa darteed marka la eego qeexitaanadan ilaahu waa keli wax la midana ma jiraan qur-aanku wuxuu ku leeyahay suuratul ikhlaas suuradda 172 aayadda 1 ilaa 4 qeexidda alle waxa weeyaan qul huwa allaahu axad dheh allah waa keli allaahu samad allah waa kan danaha loola qasdo lam yelid walam yuulad wax ma dhalin lama dhalin walam yakun lahu kufuwan axad wax la midana ma jiraan qul huwa allaahu axad dheh alle waa keli adigu ma qofka keliya adduunyadan ku nool baa tahay mise aniga ah qofka keliya adduunyadan ku nool maya ama haa waxaan ahay bini aadam ma keligaabaa adduunka bini aadam ah maya aniga mid ka midaan ahay qul huwa allaahu axad dheh alle waa keli allaahu samad allah waa kan awoodda weligii ah leh adigu awood weligeeda maaleeda oo xoog badan maya haddaba sideed ilaah ku noqon kartaa aniguna awood weligeeda oo xoog badan ma lihi sidoo kalena ilaah maahi lam yelid walam yuulad waxna ma dhalin lamana dhalin adiga laba waalisoo kuma dhalin mise haa haddaba sideed ilaah ku noqon kartaa anigana sidoo kale waa la ii dhalay sidee baan ilaah ku noqon karaa aniga carruur baan leeyahay adigu carruur ma leedahay haa haddaba sideed ilaah ku noqon kartaa marka walam yakun lahu kufuwan axad ma jiro wax la mida ama u eg anigu waxaan ka sheekaynayaa qeexitaankayga ilaah qeexitaankaaga ilaahay aad u taqaano anigu taa kama hadlayo anigu waxaan ka sheekaynayaa qeexitaankayga ilaah aan u aqaano iska hilmaam adiga qeexitaankaad u taqaano anigu kaa kama hadlayo laga yaabay inuu qeexitaan beena yahay uusan ahayn ilaaha dhabta ah anigu kama hadlayo ilaaha adigu aad ka sheekaynayso waa alle keli ah waa waaxid waa allaha danta loola qasdo waxba muusan dhalin isaga lama dhalin sidoo kale wax la midana ma jiraan marka lagu dhiso qeexitaanadaas adigu naftaada ma ugu yeeri kartaa ilaah aniguse ma ugu yeeri karaa naftayda ilaah haddaad u fiirsato waad awooddaa aniga su'aal baan ku weydiiyey laba waalid ma leedahay waxaad tidhi haa haddii aad ku fakarto inaad tahay ilaah waxaa lagugu yeeri doonaa qof caqligiisu dhiman yahay mudane waa inaan qayb ilaahay ka mida ahay adigu waxaad leedahay ilaahay waa keli aniguna waxaan dareemaya inaan qayb ka mida ahay allaha weyn annagu qayb ka mida unbaan u taagannahay laga yaabay in annaga ilaahay nagala gooyey taa waa qeexitaankaaga ilaah ee ma ahan qeexitaanka ku jira fiidaaga sidoo kale ma ahan qeexitaanka laga helaya qur-aanka kaasi waa qeexitaanka ilaah kale anigu kama hadlayo ilaah adigu aad rumaysan tahay anigu waxaan ka hadlayaa ilaahayga aan anigu aaminsanahay isagu waa keli mana ahan qayb wax kasta ka mida iska daa ilaahaygan adigu aad ka hadlayso hagaag ilaaha aad ka hadlayso dhinac isaga tuur anigu waxaan ka hadlayaa ilaaha aan rumaysanahay ma fahantay waa alle keliya waa alle awood badan adigu ma haysataa awood aad u weyn oo la yaab leh ma haysta awood noocaa ah haddaba matid adigu ilaah aan ka hadlayo dhinac isaga tuur ilaahaas aad ka hadlayso hagaag anigu allahayga ayaan ka hadlayaa sidaa darteed laa ilaaha waxay la micno tahay inaanay jirin ilaahyada kale ee beenta ah dhinac isaga tuur marka anigu waxaan ka hadlayaa qeexidda dhabta ah marka midkood ka hadloo yidhahdo 2 lagu daro 2 waxay la micno tahay 5 middaasi waa xalka haddaba xisaabtaas dhinac isaga tuur anigu ilaaha aan ka hadlayo waa alle keli ah waa alla danaha loola qasto waa alla aan wax dhalin isagana aan la dhalin alle wax la mid aysan jirin ma lahan 2 waalid ma lahan ilmo uu dhalay mana jiro shay u eg isagu waa keli ma rumaysantahay ilaaha tilmaamahaas leh maya mudane ma rumaysni tani waa dhibaatada taa waxay la micnotay inaadan doonin inaad rumayso allaha dhabta ah waxaan kaa codsanayaa inaad akhriso buugaagta hinduuga ee aan kuu sheegay sidoo kale akhri tarjumaadda qur-aanka kariimka ah iskuna day inaad raadiso allaha dhabta ah ee saxda iska daa ilaaha beenbeenta aad leedahay ilaah baa taana ilaahana anigu nafteyda kama soo qaaday inaan ilaah ahay markaabaad ii imaanaysa waxaad leedahay aniga ilaah baan ahay si aan kuu dhaho haa ilaah baa tahay anigu doqon maahe si aan u aqbalo ra'yigaagoon dhaho anigu ilaah baan ahay waxaad doonaysaa inaad jaxiimo ila aado laakiin anigu ma doonayo inaan jaxiimo ku raaco anigu waxaan rabaa inaan jannada aado waxaan rabaa inaan sidoo kale adigana jannada kugu wado laakiin si aan jannada kugu wado haddii aan kugu qanciyo inaan aniga ilaah adiguna ilaah tahay markaa waxaan wada aadi doonaa anigu waxaan doorbidayaa inaad jannada ila aado saa darteed waxaan kaa codsanaya inaad akhriso buugaagtaada muqadaska oo banishaadka qur-aanka aqri naftaada bar marka ay soo raac si aan jannada u wadaadno insha allah mahadsanid